السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. haddii aynu u guda galno qodobada qofka shakhsiyadiisa kor u qaadaya amaba dadku ku jeclaanayaan. qodobka koowaad waxa weeye inaad adkayso xiriirka idin dhexeeya adiga iyo Alle subxaanahu wa tacaala, sababtoo ah haddii Alle ku jeclaado malaa'igtu way ku jeclaanaysaa, malaa'igtuna haddii ku jeclaato waxaa raxmad iyo jacayl lagu gelinayaa qalbiyada dadka kale. qodobka labaad, ula dhaqan dadka sidaad jecesha in lagula dhaqmo. ma jeclid haddii aad qof bini'aadamaad tahay in lagu caayo, sharaftaada meel looga dhaco, lagaa dhigo qof hoose, adna qofna sharaftiisa meel hoos ha uga dhicin, hoos ha u dhigin, ha caayin. dadka kula dhaqan sifooyinkaad jeceshay in adiga lagula dhaqmo si aad ugu yeelato maqaam iyo jacayl sare. qodobka saddexaad, ha u dhigin dadka shakhsiyadooda hoos, amaba micno kale haddaan ku yidhaahdo dadka ha yasin. ha odhan qofkan muxuu ahaa waa qof hoose, muxuu tarayey. waxaan ka wadaa qofna maqaamka uu leeyahay kor ha u dhaafin, qofna maqaamkiisa hoos ha uga ridin. ka kaa sareeya iyo ka kaa hooseyba waa inay kuu sameeyeen. qofna sare ha u dhigin, qofna hoos ha u dhigin. qodobka afraad, wanaaji dadku xataa hadday iyagu ku xumeeyaan. markaan ku leeyahay wanaaji dadka, keliya micnaheedu maaha qofkii ku wanaajiya wanaaji, waa sax. qofkii ku wanaajiya wanaaji, waa sax. laakiinse dadku xataa hadday ku xumeeyaan adigu wanaaji, si qofku markuu wanaag kaaga dareemo adiga qalbigaaga, isagana qalbigiisa uu wanaag kugu galo, maqaam sare iyo jacaylna agtiisa ku yeelato. qodobka shanaad uguna dambeeya, dadka caawi xilliga ay dhibaataysan yihiin, xilliga ay ku jiraan xaaladda adag, sababtoo ah qof kastaad caawisaa xilliga uu ku jiro marxaladda adag iyo xaaladda adag, waxaad ku yeelanaysaa qalbigiisa saameyn, raad, jacayl, waxyaabo badan ayaad kaga tegaysaa. qofkaasina waxaad agtiisa ka noqonaysaa qof maqaam sare iyo jacaylba ku leh.